Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halkani waa Cabqari Online Academy YouTube channel ama YouTube channelka Cabqari Online Academy. Sida shaashadayna ka muuqda marka waa Cabqari Online Academy. Cabqari Online Academy waa channel loogu talagalay bulshada Soomaaliyeed ee jecel ama danaynaya barashada luuqada Englishka. dunida daafaheeda ama dunida dacaladeeda kala jooga ayaa loogu talagalay inay ka faa'iideysan si free ah. duruus kala duwan ayaa ka socota Cabqari Online Academy. bulshada Soomaaliyeed ee danaynaysa barashada luuqada Englishkana way ka faa'iideysan karaan. iyaga ayaan loogu talagalay free courses inay helaan. sidoo kale waxaan intaan casharka u gelin iyo waxaan sharaxayo maanta casharka aan leenahay waxaan rabaa weysis yar inaan ka hormariyo sida caadiga ahayd duruusi kala duwanayd ee luuqada Englishka ee certificate-ka iyo diplomada lagu qaadanayay waxay ka socotaa Cabqari page-ka ama Telegram-ka ama WhatsApp-ka duruusi lagu bixinayay oo kala duwanayd halkaas ka socotaa. insha Allah cid danaynaysa si joogto ah in casharo joogto ah maalinla daily oo helaan insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo. ana laga faa'iideyso taleefanada shashadii ku qoran yihiin WhatsApp-ka iyo Telegram-ka intaas u danaynaysa insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo. Cabqari YouTube channel ku soo dhawaada bulshada Soomaaliyeed ee kala duwan ee awal ku tixnaa had iyo jeerna subscribe-ka yiri oo gambalelkuna u furan yahay si casharka joogtada u helaan. waad ku mahadsantihiin like iyo share insha Allah ku dadaala si bulshada Soomaaliyeed ee kale ee danaynaysa ama baahida luuqada qabtana ay u helaan hadii Ilaahay yiraahdo insha Allah. maantay waa vocabulary sida caadiga ahaydba hadii jeer waxaan si asbuuclaha u soo dhignaa vocabulary book la yiraahdo 4000 essential English words. 4000 essential ka maqan 4000 essential English words ku waa book magaciis. bookga laftigooda waa silsilada waa serial books waaye laakiin bookgi koowaad ayaan ka bilownay casharkiisii saddexaad ayaan qaadanaynaa maanta insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo. marka waa English vocabulary maanta waa book dhameystiran. bookgaas qaybo kala duwan ayuu ka kooban yahay. haddaba marka aan la socono casharkii maanta aan qaadanayna ku soo dhawaada Cabqari Online Academy YouTube channel si aad uga faa'iideysataan insha Allah. subscribe ta gambalelkana furo like share tana saar si bulshada Soomaaliyeed kale u gaarto. sidoo kalena page-ka waa ku xiran Facebook iyadana follow u noqoto. sidoo kale insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo waxaan bilaabaynaa insha Allah duruuseeni. intaanan bilaabina waxaan ku bilaabaynaa hadii Ilaahay yiraahdo inaan dhageysano bal hadii Ilaahay la socosho wanaagsan. marka hore waa dhageysi. Unit 3, Word List. Alien. An alien is a creature from a different world. The alien came in peace. Among. If you are among certain things, they are all around you. There was a red apple among the green ones. Chart. A chart is a list of information. We used a chart to see how we had improved. Cloud. A cloud is a group of water drops in the sky. The sky was filled with white clouds. Comprehend. To comprehend something is to understand it. Henry could not comprehend the message. Describe. To describe is to say or write what someone or something is like. They described their tree as colorful, with gold ribbon and a star. Ever. Ever means at any time. Going skiing last winter was the most fun I've ever had. Fail. To fail means you do not succeed in what you try to do. Since he failed to get the job, he was sad.
Friendly. Friendly is behaving in a pleasant, kind way toward someone. The friendly animals came up to the girl. Grade. A grade is a score or mark given to someone's work. I managed to get good grades on my report card. Instead. Instead means in place of. He ate the carrot instead of the ice cream. Library. A library is a place where you go to read books. The library at school is full of books. Planet. A planet is a large round thing in space. Saturn is the planet with the ring around it. Report. A report is something students write for school. Karen had trouble writing her report. Several. Several is more than two, but not many. He had to read several books for class. Solve. To solve something is to find an answer to it. All the students could easily solve the math problem. Suddenly. If something happens suddenly, it happens quickly and unexpectedly. I was suddenly surprised by the cake my friends brought me. Suppose. To suppose is to guess. I suppose I should go home now. Universe. The universe is the known or supposed objects in space. The universe is so large that it cannot be measured. View. To view is to look at something. Michael likes to view himself in the mirror. The report. Lee sat among the books at the library and thought about his group project. They had to turn it in soon, but he hadn't even started his part. Jack and Claire were in his group. They had worked hard. They were also very smart, and Lee didn't want them to get a bad grade. Jack did the report. He wrote a lot of very good sentences and described things with great adjectives. Claire drew a nice map of the stars. Now Lee needed to do his part of the project. Well, I suppose I need to start my model, Lee thought. Making a model of a planet was really hard. Lee tried to read several books, but he couldn't comprehend any of the charts. "We're going to fail because of me," Lee said. He put his head down on the table and said, "I wish I could see a planet instead of having to read about it." Suddenly, there was a bright light. Lee was pulled from his chair, through the roof, and right into a strange ship. "Hello, kid," said an alien. "Did you ask for help?" Lee told the friendly alien all about his project. The alien agreed to help Lee solve his problem. "First, we'll fly through space to view the universe. Then I can help you make a model of my planet." Soon they were going through the clouds. They passed the moon. Then they viewed Mars. Lee was very excited. Instead of a bad grade, his group would have the best project ever. "It's time to go home," the alien finally said. On the way back, he helped Lee make a model of the planet Mars. Soon they were on Earth. "Thanks," Lee said. "My model will be awesome." Then he took his model and said goodbye to his new friend. Okay, insha Allah waxaan sharaxaadiyaan galaynaa marka waa noo dhamaaday dhageysiga. Unitkan waxaa la yiraahdaa waa unit 3 buugga sharaxaadiisa qaabka uu sharaxayo waxa waaye unit kasta 20 eray ayaa targada 20 kas eray oo targetka unit kasta wuxuu sameeyaa marka waa target words erayga wuxuu bixinayaa dhawaaqiisa qoraya erayga aad baas wuxuu sheegaya waa macneynaya kadibna wanaagsan buu loo gelinayaa.
Unit 3 word list. Alien waa noun. An alien is a creature waa noole from a different world. Maxaa waaye duni kale ka yimid macnaha. Alien wuxuu ka wadaa waa creature waa noole from a different world si sawirka muuqda. An alien come in peace. Alienku waa noolihii come in peace sinimada ayuu ku yimid. Among waa preposition. If you are among certain things, haddii aad ku dhex jirto waxyaabaha qaar, they are all around you. Macnaha dadka dhexda uga jirto kale ama wax sheega shay waxyaabo kale dhexda uga jira loo isticmaalaa. They are all around you. Adiga kugu hareeraysan yihiin. There was a red apple. Waxaa jira tufaax guduudan among the green ones oo ku dhex jira kuwa cagaarka ah. Waa kana sawirkan muujido meesha yarta daaqadan. Chart waa shax ama charts a list of information waa xog list gareysase waxaa loo inta ba lagu isticmaalaa chartyada excel ka aad isticmaalaa ama daatooyinka xogta lagu isticmaalaa. We used a chart waxaan isticmaalnaa shax to see how we had improved sidaan oranahay sidaan horumarka u sameynay. Cloud waa daruur waa noun kana waa preposition. Cloud is a group of water drops. Cloudka lagu sheegaya daruuraha is a group of water drops waa dhibacyo roobya ah in the sky hawada ku jira. The sky was filled erka waxa ka buuxay with a white cloud daruuro cad. Comprehend waa to comprehend something is to understand it. Comprehend iyo understand waa isku mid. To comprehend something ina wax fahanto is to understand it waa ina fahanto. Henry ayraado could not comprehend the message. Henry ma fahmi karin ama ma fahmin message. Describe waa qeexid ama tilmaamid. To describe is to say waa ina tirada ama write what someone or something is like. Waxa qofi ama shay yahay inaad sheegto ama qorto. They described their tree as colorful with golden ribbon and a star. Waxay ku muujiyeen lahay geedkii colorful with golden ribbon xargo ama engiri dahabi ah and a star xidig. Eva waa means at any time xilli kasta. Going skiing waa baashan baraf lagu ciyaaro baraf lagu ciyaaro dusheeda waaye. Last winter aadida skiing kala xayaga la soo dhaafay was the most fun. Shilaka la soo dhaafay was the most fun. Waxa ugu cajiibsan I've ever had aan sameeyay ama aan la haystay waaye. Fail waa guuldareysasho waa verb. To fail means you do not succeed. Ma guuleysanaysid in what you try to do. Waxaad isku dayaysaa inaad samayso. Since he failed to get the job, maadaama uu ku guuldareysay inuu shaqadii helo. Since waa maadaama mar waxba loo isticmaalaa. He was sad wuu murugaysnaa. Mar ilaa loo isticmaalaa. Faranil waa furfuran. Faranil is behaving in a pleasant ama kind way. Hab wanaagsan ama hab naxariis aan u dhaqanto towards someone. Mana qof inaad si wanaagsan ula dhaqanto mise naxariis ayaa loo yaqaan friendly. Furfuran oo bashasha laga wadaa. Friendly animals xayawaanaadka furfuran oo bashashka came to the girl. Maxaa gabadha u yimaadeen xayawaanka aan kayganayna sida bisadoo kale agtada imaanay isaga lugaha hoosada marayaan soo. Grade waa noun waaye. Grade waxa laga dhigay score ama mark waa calaamad ama buundo given to someone's work qof shaqays la siiyo. I managed to get good grades. Waan ku guuleystay inaan helo buundo wanaagsan on my report card. Kaarka iyo reportka. Instead means in place of bedelka. He ate a carrot. Wuxuu cunay karooto instead of the ice cream. Halkii uu ka cun lahaa jalaatada ayuu wuxuu cunay maxay ahayd karooto. Library waa maktabad. Library is a place or god where you go to read books. Halkaas oo aadina books oo akhriso. Library at the school. Maktabada schoolka is full of books. Buuga ka buuxda. Planet waa meere. A planet is a large round thing. Waa shay weyn oo ballaaran in space hawada ku jira. Saturn waa meeraha mid ka mid ah waaye. Is the planet waa meera with a ring around it. Faraanti halkaas wareeg ku wareegsan yahay ring. Faraanti camala. Report is something waa wax students write up for school. Ardayda school ku qoran report ayaan qoraya ama report laga rabaa. Karen had trouble writing her report. Mana dhibay ku qabtay inay report qorto. Had trouble writing her report. Several waa dhowr adjective waaye. Several is more than two but not many. Wax ka badan laba laakiin aan badnayn. He had to read several books for class. Waxay waajib ku ahayd had to waa must
read several books for class dhowr book inuu class ku dhex akhriyo solve waa xalin to solve something inaad wax xaliso is to find an answer to it waa inaad jawaab u hesho all the students could easily solve dhammaan ardayda waxay si fudud u xalin kareen the math problem masaladii macnaha xisaabta suddenly si degdeg ah si dhaqso ah if something happens suddenly hadday wax si dhaqso u dhacaan it happens quickly and unexpectedly waxay u dhacaan it happens quickly si dhaqso ah and unexpectedly on la filayn suddenly maxaa waaye si wax degdeg u dhaca haddana aan la filaynin I was suddenly surprised by the cake my friends brought me I was suddenly surprised waxaa si degdeg aan ula yaabay by the cake doolashaha my friends brought me ay saaxiibada ii keeneen suppose waa qiyaasid suppose is to guess I suppose waxaan qiyaasayaa I should go home now waxay la tahay waxaan qiyaasayaa in hadda guriga aado universe waa caalam the universe is the known ama supposed objects in space waa wax la qiyaasayo ama la og yahay hawada ku jira the universe is so large aad ayuu weyn that it cannot be measured and la cabiri karin view waa aragti to view is to look at something wax inaad eegto Michael looks to view himself in the mirror Michael wuxuu jecel yahay inuu isku arko muraayad ama isku fiirsho muraayad exercise ka wada xalin kartaan una xalinaysan insha Allah casharkana waxa waaye buugta waan helaynaa caawanadan shaashada ka muuqda insha Allah ayaad nagala soo xiriiri kartaan haddii kale qadka kala deegi kartaa buugga qadkood ka helaysan insha Allah report Lee sat among the books Lee wuxuu dhax among waxaan ku sheegnay dhaxda Lee sat among the books buugta library dhinac walba ka xiga ayuu dhexdeeda fariistay though inkastoo okay thoughts about his group project wuxuuna ka fikiray shaqadii arday ahaan groupka loogu soo diray they had to turn it in soon iyagu waa ardadii asage waxa waajibku waa inay dhaqso u celiyaan oo qoraan diyaariyaan but he hadn't even started his part qaybta asaga loogu talagalay weli ma bilaabinba Chuck and Claire were in his group Chuck and Claire ayaa groupkiisa ka mid ahaa they had worked hard si adag u shaqeeyaan they were also very smart aad u caqli badnaayeen Lee didn't want them Lee ma doonayn asagu iyaga to get a bad grade maadaama group ahaan loogu daro wixii ma doonayn iyagu inay bundo hooseeya helaan Chuck did the report Chuck uu qoray reportkii he wrote a lot of very good sentences jumlooyin aad u wanaagsan ayuu qoray and described things waxyaabo badan oo qeexay with great adjectives area fara badan ama adjective ayuu ku qoray Claire drew a nice map of the stairs Claire wuxuu qoraaso wuxuu sawiray maxaa la map wanaagsan oo xidiga now Lee wiilkii needed wuxuu u baahnaa to do his part of the project inuu qaybtiisa sameeyo well hagaag I suppose waxaan qiyaasayaa I need to start my model waa inaan bilaabaa aniga wixii la ii diray macnaha Lee thought ayuu ku fakaray making a model of planet samaynta nooc macnaha meere was really hard aad ayuu u adkaa Lee tried to read several books Lee dhowr book ayuu isku dayay inuu akhriyo but he could not comprehend any of charts laakiin waxba kama fahminba we're going to fail waan guuldaraysan doonaa because of me ani dartee maadaama ragga kale ama wiilashii kale ay ka shaqeeyeen anina weli aan ka shaqeyn ani dartee ayaa u guuldaraysan doonaa ayuu yiri because of me Lee said because of me waa ani dartee he put his head down madaxiisu saaray on the table miska and said wuxuu yiri I wish waxaan rajaynayaa I could see a planet in arki doono meere instead of having to read about it halka aan ka akhrin lahaa waxaan rajaynayaa inaan riyo ku arko mukooda inaan arkayaan madaxu dhigtay miiska macna okay in halka aan akhrin lahaa akhris badan aan gal lahaa suddenly si degdeg ah there was a bright light iftiimaya ayaa jiray Lee was pulled from his chair waxaa laga kaxeeyay laga jiiday kursigiisii through the roof ala guriga saqafkiisa kor laga la baxay macna ala marsi and right into the strange ship waxaana la geeyay markab si kala stranger hello kid hayo cunugo said an alien waa creature noola u yimid macna kiyaan soo arkaynay erey ku soo arkaynay did you ask for help cawmad meeday weydiisay Lee told the friendly alien Lee wuxuu sheegay
كنوليه معناس بشاشكا all about this project دمان وشقيين كلها صدره alien agreed to help Lee وكرع alien كي كنوليه إنه عاوية Lee to solve his problem سو حالي مسألة كلها صدره first we will fly through the space وحنكون دول دورنا هوادا to view universe the universe عالم كو صو داوته وصو عرفته then I can help you make a model of planet وحن كعاون دونا وحن كعاون ياسا وسميسته model كي معناها قريرات ما مراها soon صدق they were going through the clouds وحياه دحمرين ضرورة دحدود they passed the moon بشي ويدافين then they viewed Mars كانوا يسووا أركامه مراها Mars كده Lee was very excited Lee هذا يفرح سما instead of a bad grade خلقي وكاين لها بوضحون his group would have the best project ever وحبوا نقولنا مشروع مشاقات أولنا السنة اللي الله دربه group كيس it's time to go home the alien friend finally said نقوليه وحوليه وحلقيه هم قدبوا لابان لهين هم عادي لهين هم كا on the way back مركي وددك سؤال لابشوا دينا he helped Lee make a model of planet وحكا عاوي انه صوره اما سميسو مارسون مارسكي مارسكي اللي هذا ما planet مارسكا soon said they were on earth looking imagine thanks Lee said Lee يعني ما سنته my model will be very awesome at ونكسران دونا then he will took his model and said goodbye he took his model kii Marska uu sameeyay soo qaatay and said goodbye to his new friend wuxuu ku yiri saaxiibkiisa cusba nabadiisa nabadgelyo halkan waa Cabqari online academy youtube channel aniguna waa Ustaad Cabdinuur Maxamed Samatar casharkeena ama unit 3 ahaa maanta aan qaadanay inta soo noogiyo insha Allah waa asbuuc xiga asbuuciiba hal cashar ayaan qaadanaa sidaas nabadgelyo Ustaad Cabdinuur Maxamed Samatar assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh